kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idin kugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan muuqaalkan inta daawanaysana waxaan kugu soo gudbin doonaa Ruushka oo sheegay inuusan dhexdhexaad uusan ka noqon doonin dagaalka u dhexeeya Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doonaa wadamada Khaliijka Carabta oo dalbaday in la siiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay difaacana duqeymaha ay Iiraan ay ka wado qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo xaalka ku xun yahay iyo sidoo kale Iiraan oo guulo waaweyn gaartay halkan idin kugu soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelka furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkeena share garay laagino saarso gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada in ku bilaabno Ruushka markii ugu horeysay waxa uu ka dhawaajiyay inuusan dhexdhexaad uusan ka ahaan doonin dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe sidoo kale wadamo kamid ah Khaliijka Carabta kaasi oo sheegay in uu u dhaxeeyo Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan Ruushka ayaa sheegay inuusan dhexdhexaad ka ahayn dagaalka Iiraan safiirka Ruushka u fadhiyo London ayaa sheegay in dawladda Ruushka ay si cad ay u taageersan tahay Iiraan waxa uu tilmaamay in mowqifka Ruushka uu yahay mid taageero u muujinaya Iiraan isla markaana aanan qaadan doonin dhexdhexaadnimo ku aadan xaaladda ee gobolka waxa uu sheegay Ruushka uu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan dagaalkaasi isagoona sheegay in Iiraan wax alaala waxay ugu soo baahato ee ku aadan dagaalkaasi uu ka garabsiinayo hadii ay ahaa lahaayeen diyaaradaha dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan awood military sidoo kale xeelad walba oo dagaalkaasi ay kaga adkaan karaan horey in Ruushka in Mareykanka waxa uu sheegay in uu xoog badan uu siiyay Iiraan kaasi oo ahaa goobo badan oo ku aadan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay wadamada Khaliijka Carabta kaasi oo Mareykanka horey ugu shaqeysana Ruushka in uu Iiraan uu ka taageeray duqeymaha si bartilmaameedka waxaana uu sheegay in Mareykanka horey u sheegay in Iiraan aysan awood u lahayn bartilmaameedyadaasi isla markaana uu ka caawinayay Ruushka hadii aan eegnana wadamada Khaliijka Carabta waxa ay dalbadeen in la siiyo diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska si ay difaacaan weerarada kaga imaanaya dhanka iyo Iiraan sida uu daawacay wargeyska Financial Times ayaa sheegay in dalalka Khaliijka Carabta gaar ahaan wadamada Imaaraadka Carabta Qatar iyo Kuwait ay codsanayaan in ay iibsadaan kumanaan diyaarado aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska oo ay soo saarto shirkadda Ukraine ee TAF waxaana wararku ay tilmaamayaan amaba ay sheegayaan in Qatar ay gudbisay codsi ku saabsan iibsashada 2,000 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska halka Imaaraadka Carabta isna uu dalbaday 5,000 oo diyaaradood kuwaasi oo gabi ahaanba ay ku doonayaan in si toos ah ay isaga celiyaan weerarada Iiraan ay ku soo qaadayso wadamada Khaliijka Carabta maadaama ay Iiraan si gaar ah ay u bartilmaameysato qaybo kamid ah wadamada Khaliijka kuwaasi oo saldhigyo military oo waaweyn uu ku leeyahay Mareykanka sidoo kale Kuwait ayaa la sheegay inay muujisay xiise ay ku doonayso inay iibsato droonka nooca helicopterka kuwaasi oo loo adeegsado in lagu qabto amaba lagu soo rido droniska kale ee hawada ku jira dalabkan ayaa muujinaya sida ay Khaliijka Carabta u kordhinayaan awoodahooda difaaca ee ku aadan tiknoolajiyada droniska iyadoona shirkadaha Ukraine ay noqdeen kuwo si weyn loogu taxadaro khibrada ay la leeyihiin horumarka qalabka inkastoo ay si adag isku diyaariyaan dagaalka wadamada Khaliijka Carabta haddana awooda dhanka gantaalada kuma gaaraan Iiraan iyo sidoo kale diyaaradaha nooc walba leh Iiraan markaan waxay soo kacsatay diyaaradihii ugu dambeeyay ee dagaalka kuwaasi oo si fudud aan ku soo qaban karin raadeelka Mareykankana markaan waxa soo gaaray jab culus iyagoo markaan doonaya in ay wada hadal ay la galaan Iiraan Mareykanka markaan iyo sidoo kale Israa'iilba aan u wacna dhanka Israa'iil mas'uuliyiin ugu sarsareysay sidoo kale shacabkiisaba xilligan waxay ku hoos gambanayaan dhulalka hoostooda iyagoona halkaasi ka qotay godad waaweyn si ay ugu gambadaan weerarada Iiraan ay ka fulinayso qaybo kamid ah wadamada amaba wadamada ku yaala Israa'iil
kuwaas oo bartilmaameed u ah Iiraan waxaana xilligan soo food saartay cabsi xoogan maadaama Iiraan ay sii laba jibaartay weeraradeeda ku aadan ee bartilmaameedka iyadoo la sheegay in xilligan ay Iiraan ay diyaar u tahay dagaal nooc walba leh in ay la gasho Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan. xaaladda bariga dhexena waxay noqotay mid ka sii dareysa tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyadoo Iiraan mar kale hanjabaado cudus hawada u marisay bariga dhexe qaliidka carabta sidoo kale Israa'iil iyadoona sheegtay Iiraan inaysan diyaar ay u ahayn in ay weerarto wadamada dariska ah ama ay ku xadgudubto madax banaanida balse waxay xustay hadii wadamadaasi weerar looga soo qaado dalkeeda ay si gaar ah u bartilmaameysan doonto dagaalkana dhankaasi ay u weecin doonto balse hadii aanan wadamada ay sheegtay ama dariska ah aanan weerar looga soo qaadan ay ka amaan heli doonaan iyadoona sheegtay in xilligan bartilmaameedkooda ugu weyn uu yahay isku taga Imaaraadka Carabta halkaasi oo saldhig weyn uu ugu yaalo Mareykanka kaasi uu ku bixiyay malaayiin dollar bartilmaameedka ugu weyn halkaasi uu yahay. Israa'iil hore waxay u sheegtay in markaan Iiraan ay dagaalkeeda uu gabaabsi u yahay iyadoona ku tilmaantay in hubkii iyo sidoo kale diyaaradihii ay mar hore adeegsadeen dagaalka inta uu bilowgu ahaa balse Iiraan ay sheegtay in wali ay isku filan tahay dagaalka hadii uu socdo muddo sanado ama 6 bilood ay haysato hub ku filan sidoo kale diyaaradaha dagaalkana ay haysato wixii xogay ku soo kordhay la xiriira muuqaalada xiga idin kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena falan subscribe inoo dhig gambaleelkana furasay ku soo gaaro muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay muuqaalkan oo share gareey inoo saar soo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.